السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمها بدن ee ku xiran kanaalkan YouTube ee Garaadso isku soo noqod wanaagsan iyo aragti xiiso leh. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan anigoo sidoo kale alxamdulillah. Muuqaalkii midkan ka horeeyay waxaan carab ku dhuftay inaan soo gelin doono muuqaal ku saabsan sida internetka wax looga barto, balse waxaan jeclahay inaan muuqaalkan ka hormariyo oo ku saabsan sida Google wax looga baaro. farsamooyinka cajiibka ah la isticmaalo ayaa muuqaalkan ku baran doona insha Allah. Ku soo dhow. وهاجاك سيدا رجينا waxaad ka mid tahay isticmaalayaasha internetka oo Google-kii maalinkii waxaad ka baartaa 3 ama 4 ama 5 ama inta wax ka badan ba dhamaan waxa macquul xogta halkaas aad ka baartay inaad hesho, balse farsamooyinkan waxay kuu fududeyn doonaan in si sahal ah aad ku raadiso wixii aad u baahan tahay. muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa marka in yar oo kooban oo asleeyahay waxa loo qabaa baahi weyn, waxayna u fududeyn doonaan qof walba oo isticmaalo ah inuu fariimihiisa ama waxyaabaha halka ku qoray si sahal u helo. marka ugu horeysa Google waxaad ku isticmaali kartaa browser hadba noocaad isticmaasho, Chrome-ka, Firefox-ka iyo wixii la mid ah. marka anigu waxaan adeegsan doonaa Chrome. Google halka ayaa ka geli doonaa si aan u arko waxyaabaha aan search gareynayo sida ay ugu soo bixi doonaan. waxaan marka ka bilaabi doonaa fariin yar oo fudud. su'aal waxaan ku qori doonaa qalin ama pen. qalinkaas markaan ka dhex baaro waxa ii soo saari doonaa marka qalimaantan hadda hortaada ka muuqda aad arkayso dhammaantood waa qalimaan qoraallo iyo wax la xiriira, balse haddii aan rabo inaan sawir ahaan doorto oo qalimaanta oo sawir aan arko waxaan tagi doonaa qaybtan imageska. halkaas markaan tago sidaad arkayso waxa ii soo saaray qalimaan kala duwan oo mid walba nuuc yahay. waxaan u baahanahay oo kaliya qalinka madow inaan xusho oo aan iska daayo qalimaanta kale. halkan ay ku qoran tahay marka tools ayaan ku dhufan doonaa, kadib waxaan tagi doonaa colorscan, waxaan ka dooran doonaa mid madow ah. wuxuu isoo saari doonaa marka sidaad arkayso qalimaantan kulligood ay madow yihiin. marka dhammaantood waxay qalimaantan u baahanaa oo kalarka ahaa. sawir walba ama xog walba aad u baahan tahay sawir ahaan inaad u raadiso waxaad xolan kartaa sawirkooda, sidoo kale waxaad dooran kartaa kalarka aad u baahan tahay. waxaan rajeynayaa inaad halkaa fahantay oo qaybtaasna aad u isticmaali jirtay. sidoo kale waxaan u gudbi doonaa marka qaybtan ayaduna xigta. waxaan ahay isticmaale Facebook, waxaan u baahanahay inaan raadiyo wax Facebook la mid ah. markii aan search gareynayo waxa qasab ah inaan ka hormariyo waxa lagu magacaabo relatedfacebook.com. markaan qoro waxa ii soo bixi doonaa marka si aad arkayso halkan LinkedIn-ki iyo social media qaybihiisa kale oo la mid ah Facebook markuu soo saari doono wax la xiriira Facebook. حتى هل صور أو كميدا فيسبوك مكوسو قبل دونا أو حكوس صار دونا سوشيال ميديا متكلم ميدا. سؤال وحن قلنا كرا هل كان related وحنا نقول بدل كرا عاصمة .net أو ويب سايت كا سومالي أنت بدن وراركي كآخريان. عيش صار دونا سي هل كان أركيسو هيران ويب سايت كلو مجعبه وويب سايتيو لميدا طبعا عاصمة أو وراركي يلا آخرستو. مركا ويب سايت كا دورتين ما هنا متك كهالميدا ayuu ku soo xili doonaa. marka inta badan waxa macquul ah inaad Wikipedia ama wixii la mid aad xog iyo macluumaad sawirro aad ka baartaan ama PDF wixii la mid ah. marka waxa jira website midka la mid ah ama website waxa jira ku qanciyay ama dabcan YouTube ko kale waa dabcan website-da lagu magacaabo video la soo geliyo. marka website waxaad rabtaa sida la midka YouTube oo kale waad search gareynaysaa any website oo aad u baahan tahay sidaas ayaad ku raadinaysaa relatedka ayaad ka hormarinaysaa. qodobkeena noogu xogay wuxuu noqon doonaa tusaale waxaan u baahanahay inaan raadiyo oo aan Google ka search gareeyo sheeko buug ah ama buug caadi ah, balse file type-kiisu uu yahay PDF ama wixii document nooc kala ama word document ama wixii la mid ah. markii aan magaca qoro waxa ii soo baxaya sheekadii iyo qoraal qof wax war uu ka yiri wixii la mid ah. marka ma baahni waxaan u baahanahay kaliya inaan PDF degsado. marka horeysa markaan search waxa ku qoray hadda wheel-wall oo kale. wheel-wall waa hadii aan search garay waxa soo baxaya sheekadii idii raqameedkii wixii la mid ah. marka waxaan u baahanahay kaliya wheel-wall buuggiisa oo PDF. waxaan raacin doonaa marka file, kadib waxaan raacin doonaa marka waxa lagu magacaabo PDF ayaan ku qori doonaa 2 dhibcood PDF ayaan raacin. marka inta raaciyo waxa ii soo bixi doona marka halkan sidaad arkayso buuggii oo PDF-kiisa dhammaan halkan aan kala degi karo. sidoo kale hadaan u baahanahay marka word document asagoo la mid ah inaan baadi goobo waxaan raacin doonaa meesha hadda PDF ka raaciyay document oo ah doc loo soo gaabiyo. sidaas markaan u qoro waxa ii soo bixi doona sida halkan ka arkayso buuggii oo documenti ama qoraal ah oo qaabkaas u qoranba. marka halkaas ayaad ka degsan kartaa hadii uu website-yada ay soo galiyay macluumaadka dhan halkaas ayaad ka arki doontaa. marka buug walba aad PDF-kiisa ama documentigiisa raadinayso sidaas ay u search gareynaysaa, buugga magaciisa aad qoraysaa,
kadib waxaad raacin doontaa file laba dhibcood PDF ayaad qoraysaa ama documentiga qaabkiisa ayaad u qoraysaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad qaybtaana fahantay qodobkeena xigana wuxuu noqon doonaa tusaale waxaan u baahanahay inaan baadi goobo qoraal aan rabo inaan qoraal kale lagu dabaqo sidee tusaale waxaan u baahanahay isla wiilwaalkii hadeer inaan mar walba oo magaciisa la soo qaado aan ku daro sheeko oo aan ii soo qabto asagu sheekada wiilwaal sheekadiisii sheeko dhaqameed waxa wixii la mid ah marka waxaan raacin doonaa meesha hadda aan file iyo type aan qoranayay waxaan raacin doonaa plus sheeko mar walba marka aan halkan search ay raahdo sida ujeed wuxuu saari doonaa marka wiilwaal sheeko ii soo qaban doonaa haddii marka aan minus ku sameeyo pluska meesha aan ka tirtiro aan ka dhigo minus wuxuu saari doonaa marka wax walba oo sheeko ah uu qarin doonaa kaliya wiilwaal oo mawduucyo kale la socdaan dabcan waa iga reeb tan pluska wax aad ku dar wiilwaal marka qoto sheekadiis iigu soo dar weeye marka halkaana waa iga reeb marka tusaale waxaan u baahanahay qof magaciisa oo kale inaad sirji gareeyo marka darajada qofkaasi ayaan u raacin karaa tusaale hadduu madaxweyne yahay hebel plus madaxweyne ayaa dhihi karaa mar walba marka ii soo baxdo fariin ii soo baxdo ii soo bixi doona madaxweyne hebel haddii aan minus ku sameeyo waxa ii soo bixi doona marka magaciisii oo kaliya hebel waxaad ka reebtaa wax walba oo madaxweynihiisa kaliya magaciisa ii soo qor marka mar walba wuxuu isku dayayaa inuu magacii oo kaliya kuu soo celceliyay marka qaabkaasna waxaad rajeynayaa inaad hadda kadib wax u baari doonto qodobkeena xigana wuxuu noqon doonaa inta badan si aan rajeynayo bini'aadamku hilmaan badan yihiin waxa macquul ah inaad wax ka xasuusato maahmaah sheeko gabay wixii la mid ah tidco ka mid ah ama qayb ka mid ah aad ka xasuusato qaybta kale ay ka maqan tahay tusaale waxaan hadda search gareynaa nin lagu magacaabo Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waxaan xasuustaa oo kaliya sayidka Maxamed iyo Cabdillah way iga maqan yihiin xasankan waan xasuustaa sayid xasan inuu ahaa wixii la mid ayaa maskaxdayda ku warwareegaya waxaan sameyn doonaa marka waxaan qori doonaa sayidka meesha xasanka ayaa waxaan ka hormarin doonaa xidigtan kadibna waad search gareyn doonaa waxaa mar walba ii soo qabanaya marka magaciyo dhammaystiran labadii xaraf oo kale waa ka maxamedkii cabdullaahi uu kusoo daray sayid maxamed cabdilla xasan marka la halkan si aad arkayso waa sayid maxamed cabdilla xasan marka qaabkaas ayuu ii soo qori xogtii ama wixii markaas aan search gareynayay sidaas ayuu soo qaban doonaa marka mahmaah haddaad qayb ka mid xasuusto qaybtii ugu dambeysana aad ka maqan tahay qaybta dhexo kale waxaad raacinaysaa xidigtaas wuxuu ku soo qaban doonaa marka isaga ayaa ku soo dhameystiri doona qodobkeena xigana wuxuu noqon doonaa tusaale magaalo ayaad ku cusub tahay ama waxaad u baahan tahay inaad ogaato maqaaxiyaha ku dhow hoteelada ku dhow iyo wixii la mid ah tusaale waxaad ka hormarin doontaa marka nearby waxaad raacin doontaa laba dhibcood waxaad qori doontaa marka restaurant hotel coffee wixii markaas aad rabto dhammaantood marka ayagoo halkaan maapkooda halka ay ku yaalaan in sida kugu kala dhow yihiin ayuu kuu soo qaban doonaa sidoo kale waxaa xusid mudan mid walba aad muuska saarto sidaan oo kale waxaa kuu soo bixi doonaa maapka halka uga yaalo iyo meesha ku qotamo ayaa kuu soo bixi doontaa sidaas ayaad adeegsan doontaa magaalo walba aad joogto search garee nearby coffee ku qor nearby hotel ku qor dhammaantood sida ayuu kugu soo qaban doonaa qaybtaasna waxaan rajeynayaa inaad aad iyo aad u fahantay hadda kadibna aad isticmaali doonto halkaas waxaan ugu gudbi doonaa marka qaybta qoraalada caadiga ee aad ku baari karayso insha Allah markan waxaan u gudbi doonaa qaybta xisaabaadka sidee buu ku yahay tusaale haddaan rabo inaan laba xisaabood isku bedelo 500 oo sentimitir haddii aan rabo inaan u bedelo mitir sidee buu igu soo bandhigi doonaa waa maskax fiican yahay hore ayuu ka soo qaban 500 oo sentimitir oo loo bedelay mitir waa kan xisaabteeda halkan ku qoran 5 mitir waxaan rajeynayaa marka wax walba oo sidaas oo kala la midka haddii aad ku baarto kilomitir loo bedelo mitir wuu ku soo qaban doonaa sidoo kale marka qaybta kale waxay noqon doontaa haddii aad ku qorto qoraal caadi ah tusaale haddaan qoro 500 oo aad rabo inaan u bedelo xaraf ama qoraal aan u bedelo kale wuu ii soo qaban doonaa iyadoo luqadda ingiriiska ah marka bal aan halkan geliyo waxaan ku qori doonaa marka 500 waxaana dhihi doonaa waxaad u bedeshaa to letter xarfa ahaan igu bedel waka halka ka soo saaray xisaabtii iyo qoraala marka waxaan rajeynayaa inaad qaabka u isticmaali doontid inta hadda sheegay iyo in kale ka badanba Google waxba looga baari karaa balse search gare internet ka baar si aad u search gareysay ayadoo kale u search gare si Google ka wax badan looga raadiyo waayo sanad ka dambeeya wax badan baa tiknoolajiyada lagu soo kordhiyaa qaybo badan ayaa rajeynaya sanadada socda lagu soo kordhin doona oo u fududeyn doona qofku inuu ku raaxaysto isticmaalka Google ka marka bal muuqaalkeena halkaas ayaa ku soo gabagabeynaya insha Allah muuqaalka xigana wuxuu noqon doonaa sidee internet ka wax looga baran karaa waka amaana Allah